Arrimahan maanta ka hadlaya waxa ugu waaweyn ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto waa salaamaya. Waxaan ka hadlayaa arrin ka dhacday Soomaaliya, gaar ahaan Puntland, magaalada Garowe, gabar Soomaaliyeed oo u gaftay beelaha Digil iyo Mirable ama beesha Raxaweyn, oo dad ajnabi ah oo waddanka laga raafayay oo Oromo iyo Carab iyo waxaas ku tilmaantay gabadhaasina, oo waxay ku tilmaantay dadkaasina inay la mid yihiin dadka waddanka laga raafayo ajnabiga ah. Dadka Soomaaliyeed sharafta leh, Digil iyo Mirable oo waddanka jooga, maxaa marka sababta waxay u leedahay arrintaas? Waa arrin fool xun, aad iyo aad u fool xun. Ummadda Soomaaliyeed ay ka wada xun yihiin, ra'yigeeda ka hadashay. Dadka reer Puntland kulama socdaan, raaligelin baan ka bixinayaa inaynan hadalkaas mar dambe aan wax hadalkaas gabadha ka soo yeeray oo xun, oo foosha xun, oo aad iyo aad u qurmoon, mar dambe inaan ka soo bixin hadalkaas oo kale. Ay raaligelin ka bixiyaan dadka reer Puntland, shacab iyo dowladba. Laakiin ayadoo dadka reer Puntland mas'uul kama aha, shacabka sharafta leh reer Puntland mas'uul kama aha. Ra'yigeeda qurmoon bay ka hadashay. Dadka marka afka ay ku taagayso oo Digil iyo Mirable gaar ahaan ay tiri eelayda waa dad Soomaaliyeed sharaf leh waddankooda jooga. Puntland iyo Baydhabo iyo Garowe waa isku mid. Eelayna waxa weeye waa qabiil ka mid ah beelaha Digil iyo Mirable. Marka gaf bay samaysay, gafkaas waa ka raaligelinayaa beelaha Digil iyo Mirable iyo Raxaweyn. Beelaha Digil iyo Mirable oo walaalahana waa ka raaligelinayaa gabadhaas. Dowladda Puntland waxaan dhihi lahaa gabadhaas ra'yiga foosha xun ay ka hadashay waa inay tilaabo degdeg ah ka qaadaa, raaligelin ka bixisaa. Haddii macnaha gabadhaas ay raaligelin ka bixin weydo ama cid raaligelin ka bixi la waayo, gabadhaas waa in xabsiga loo taxaabaa. oo ciidamada amniga waxaan barayaa inay aad iyo aad u edeb daran tahay oo una gardaran tahay. Waxaan kaloo ka digayaa dadka reer Puntland oo shicibka markay ka hadlayaan dadka ajnabiga waddanka laga raafayo. In dadka ajnabiga waddanka laga raafo waa sax haddii macnaha ammaanka ay waxyeeleeyeen oo waddankooda ha loo celiyo. Haddii dhibaatadoodii badatay oo qaraxyo iyo dhibaatooyin ay sameeyeen iyo howlgalka u socdo, dowladdu inay arrintaas samayso aad iyo aad bay ugu ammaanan tahay. Laakiin dadka shacabka waxaan ka hadlayaa marka qaar markay hadlayaan oo dadka Soomaaliyeed sharafta ku soo daraya hadalladu ka fakanayaan, oo dadkaas gaar ahaan beelaha Jareer Weyne iyo beelaha Digil iyo Mirable markaas hadalladaas waxay ku soo dardaraya oo u gafaya dadka Soomaaliyeed oo waddankooda jooga, inaan dadka afar la saari karin, lana hadli karin. Markii dad ajnabi laga hadlayo oo waddanka laga raafayo inaan la soo qaadin magacyo maxaa lagu soo darayaa. Waa dad Soomaaliyeed, dalkoodii iyo dadkoodiibana la joogaan, barakacna maaha. Qof dambe oo reer Puntland ah oo dadkaas u gafaya ayuusan jirin, hadduu shacab yahay hadduu dowlad yahayba. Gabadhaasna ra'yigeeda ka hadashay, anaana ka raaligelinaya anigoo ku hadlaya afka reer dowladda Puntland iyo shacabkeedaba. Mar dambe qof dambe oo reer Puntland arrintaas yaana ka maqlin. Haddii ay ka hadlayaan dadka la raafaya ha ka hadleen sida hadda Oromada, Amxaarada, Xabashida iyo wixii la halmaan oo la celinayo howlgalka ay dowladdu ku sameynayso, iyo Carabta iyo waxa ka hadlay. Laakiin dadkaas masaakiinta oo Soomaaliyeed oo dalkooda jooga oo barakacan ahayn yaan mar dambe lagu soo darin. 100% baan ka raaligelinayaa, waxaana arrintaas u dirayaa macnaha oo aan ka raaligelinayaa beelaha Digil iyo Mirable sharafta leh walaalahana inaan hadalkaasi uu gaf yahay. Gabadhaasina ay ra'yigeeda ka hadashay, cidna aysan ku metelin, dadka reer Puntland aysan ku metelin, shacabkeeda ku metelin, ra'yigeeda ka hadashay. Waxaan kaloo ku celinayaa mar labaad dowladdu gabadhaas haddii macnaha raaligelin laga bixin waayo waa in tilaabo degdeg ah ay ka qaado. Ciidamada qalabka sida Puntland ha guuleysteen baan leeyahay. Wixii dhintay waagi dhaweyd howlgalka ku dhintay, dagaalka ku dhimatay, intii ku dhimatay Ilaahay ha u naxariisto, inta dhaawacana Ilaahay ha bogsiiyo. Howlgalkaas argagixisada meelaha ay la wareegeen aad iyo aad baan u bogaadinayaa, iyo ilaa 70 iyo 80 meelood meelahaasaan maqlay in la soo afjaraan rajeynayaa. Marka waxaan kaloo ka hadlayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meelay joogaan kheyr iyo bash iyo barwaaqana u rajeynayaa. Arrintaas darteed baan maanta codkan xasaasiga u duubayaa. Arrintaas mar dambe iyo baan rajeynayaa oo macnaha
aysan soo noqon. Howlgalka gobolada Puntland ka socda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, laakiin mar labaad waan ku celinayaa dadka Soomaaliyeed beelaha Jareerweyne iyo Digil iyo Marble inaan la soo qaadin magacyadooda, oo markii macnaha laga hadlayo dad ajnabi la celinayo yaan dadkaas loo gafin Soomaali dadkaas. Haddii arrintaas ay dhacdo oo aan ka maqlo dad dambe oo soo qaadaya dadkaas aan u gafay, anigu nin reer Puntland aan ahay, nin Soomaaliyeed baan ahay, nin dalkan iyo dadkan u soo halgamay baan ahay. Codkaygu meel dheer buu gaarayaa. Korneyl Farxaan Abshir Maxamuud Raamoola la dhahaa. Xaq baan ku leeyahay dalka iyo dadka, dalkan iyo dadkan ugu soo halgamay, gaar ahaan reer Puntland ugu soo halgamay, inaan ka hadlana xaq baan u leeyahay. Marka xaq baan u leeyahay inaan ka hadlo arrimahaas. Marka dadka reer Puntland haddii mar dambe arrintaas ay dhacdo oo dadkaas Soomaaliyeed aan sheegay Digil iyo Marble ama Jareerweyne wax loo geysto, waxay noqonaysaa inaan sidii anigu aan reer Puntland ku ahaan lahaa, anoo reer Puntland dalka iyo dadkan u soo halgamay, inaan wixii aan samayn lahaa oo inaan ka fiirsan doono. Haddii macnaha aan dowladda Puntland la shaqayn lahaa, inaan ka fiirsado go'aan ka gaari doono. Waa haddii ay mar dambe dhacdo weeye oo dadkaas beelaha Soomaaliyeed faraha laga qaadi waayo. Anigu waxa weeye dadka oo dhan baan u hadlaa, oo aan cid alle cidii laga gardaran yahay oo la dulmiyay ayaan ka hadlaa. Dulmigana Ilaahay raali kama aha, inkastoo hadda wax dhibaatooyin loo geystay aan maqal, laakiin dee waxaa hadda lasoo qaadayo magacyada hadda dadku ay soo qaadan eelay iyo wax lamid ay ku sheegayeen, taasaaba gafaba. Marka fadlan waxaan ka codsanayaa dadka reer Puntland iyo dowladdaba dadka faraha in laga qaado oo waddankoodiiba joogaan. Dowladda Puntland aad iyo aad bay u mahadsan tahay. Hadda ka hor guryo iyo waxyaalo badan baa loo dhisay, gaar ahaan madaxweynaha Siciid Cabdullaahi Deni iyo wasaaradda dejinta aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Dowladduna waa u mahadsan tahay. Dib u dhis iyo dib u dejin baa loo sameeyey. Dalkoodii bayna joogaan, xaq bayna u leeyihiin. Waa muwaadiniin Soomaaliyeed. Qaar baa 22 sano iyo 30 sano jooga. In guryaha hadda loo dhisay kuwa ka badan loo dhisayna waa rajaynayaa. Marka ummadda Soomaaliyeed khayr iyo bashbash baan u rajaynayaa. Waa anigu ah Korneyl Farxaan Abshir Maxamuud Raamoola. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.